Assalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka Cadnaan Yaasiin. Warbixinta maanta waxaynu ku eegi doonaa xayawaanada ugu la yaabka badan ee adduunka qaybteedii afraad. Qaybtanna waxay noqoni doontaa tii ugu dambeysay. Intaynu muuqaalkeenan daawada u gelin waxaan kaa codsanayaa inaad channelkan subscribe garaysid, muuqaalkana like garaysid, share garaysid, commentigana aad ku soo reebtid qodobka kugu la yaabka badan. channelkan Cadnaan Yaasiin waxaad ka daawani doontaan warbixino iyo dhacdooyin iyo taariikho hore u dhacay oo ku xiiso geliya. Daawade haddaba naga mid noqo oo channelkan noo subscribe garee. Warbixinta koowaad ee aynu ku eegi doono qaybteena afraad daawade waxa weeye jiirka loo yaqaano Naked Moorland. waxa uu jiirkani ku nool yahay oo laga helaa bariga Afrika, khaas ahaan wadamada Somaliland, Ethiopia iyo Kenya. waxaanu jiirkani ku nool yahay oo uu qotaa godadka meelaha barwaaqada ah ee qalalan. waxa kale uu jiirkan ku nool yahay dalka Mareykanka, khaas ahaan meelaha xayawaanaadka lagu daryeelo ee loo yaqaano suuga amba xadiiqatul xayawaanaad. jiirkan wuxuu ka mid yahay xayawaanada ugu la yaabka badan ee adduunka, kaas oo ka yaabiyey culimada ku takhasusay cilmul xayawaanaad. sababtuna waxa uu jiirkan leeyahay sifooyin biology ahaan oo naadir ah. waxa uu noolaan karaana 32 sano. tanna caadi maaha marka loo eego qabiilooyinka jiirarka ee loo yaqaano qawaaridka amba lordontiska. intaas waxa u dheer oo ugu la yaabka badan waxay tahay inuu ku noolaan karo meelaha oksijiintu ku yar tahay. xayawaanka labaad ee aynu ku eegi doono qaybteena afraad daawada waxa weeye xayawaanka loo yaqaano baaklun. xayawaankan baaklun ayaa sidoo kale lagu naaleysaa hooyada qurunka. xayawaankana waa xayawaanka qudhaata ee naasley ah ee leh xaraashif. xaraashifkan oo u isticmaalo inuu iskaga difaaco xayawaanada isaga ugaarsanaya. daawada deegaankiisa dhabta ee laga helo xayawaankan waxa weeye bartamaha iyo galbeedka Afrika. sidoo kale waxaa laga helaa dalka Hindiya iyo koonfurta bari ee dalalka Asia. xayawaankan ayaa sidoo kale la dhoofiyaa ama si sharci darro ah looga ganacsadaa, iyada oo la aaminsan yahay in jidhka xayawaankan uu yahay dawo. iyada oo taasi jirto ayaa haddana dalal badan ka digan in xayawaanka la ugaarsado lana dhoofiyo. xayawaankan haddaba jidhkiisa loo maleynayo inay dawo ku jirto ayaa waxaa aaminsan in dawada jidhkiisa ku jirto. dalalka aaminsan waxaa ka mid ah dalalka reer Asia ee iskugu jira Indhayarta, Hindida iyo Carabta. xayawaanka saddexaad ee aynu ku eegi doono qaybteena afraadna daawada waxa weeye xayawaanka loo yaqaano shaydaanka Tasmania ama Tasmanian Devil. waxaa lagu tiriyaa xayawaankani loona yaqaana shaydaanka Tasmania inuu yahay xayawaanaadka ugu weyn ee marsiibooyinka cuna hilibka. waxaanu ka mid yahay naasleyda ugu la yaabka badan ee adduunka. inkasta uu egyahay xayawaankani xayawaanka loo yaqaano ayga, haddana waxa uu leeyahay dareemo cidwaani ah ama sharis ah. sidoo kale xayawaankan waxa uu leeyahay madax, qoor iyo daan xoog weyn oo awood u leh inuu si fudud u jajabiyo lafaha xayawaanada uu cunayo ama uu gaarsanayo. waxaana la yidhaahdaa daawada xayawaankan waa xayawaanka habeen socodka ah, kaas oo ugaarsada habeenkii, raadsadana cuntada uu cunayo habeenkii. xayawaankan waxa uu leeyahay cod halis ah oo laga baqo. xayawaankan waxa uu ka mid yahay xayawaanada sida si kooxo ah u ugaarsada, iyagoo oo xayawaanka cunayaan si wada jira usoo ugaarsada. xayawaanka loo yaqaano shaydaanka ayaa waxaa laga helaa jasiiradda Tasmania oo ku taala dalka Australia. waxaanu ka mid yahay xayawaanaadka kangaruuda. xayawaanka afraad uguna dambeeyay qaybteena afraad daawada waxa weeye xayawaanka loo yaqaano cunaha quraanshada ee qodaxda leh. waxaa lagu tiriyaa daawada xayawaanka loo yaqaano Isjidinia xayawaanada ugu la yaabka badan
kaas oo ka yaabiyey culimada ku taqasay cilmiga xayawaanaadka casriyo badan. Xayawaankani wuu ka soocan yahay naasleyda kale. Adduunka waxaa jira 5 naasley oo dhasha beed. 4 ka mid ah waa xayawaanka loo yaqaano Ishidinia, xagga uu midka kale yahay xayawaanka loo yaqaano Khuldulmaa. Waxa uu ku nool yahay xayawaankani saxaraha iyo kaymaha. Waxa kale oo laga helay meelo ka tirsan dalka Australia oo ay ka mid tahay jasiiradda Tasmania iyo meesha loo yaqaano New Guinea ama Kiinyada cusub. Xayawaankani waa xayawaanaadka kali socodka waxaana lagu gartaa xayawaankan wejigiisa iyo indhihiisa yaryar iyo sankiisa dheer. Sankiisa dheer waxa uu ka caawiyaa inuu wax ku arko iyo inuu wax ku uriyo, oo xayawaankani awood uma laha inuu indhaha wax ku arko. Xayawaankan ayaa qoorta iyo madaxa ku aasa markuu baqdo.